bilcaan waa balo loo baahan yahay. Xiriir kasta oo burbura ama qoys walba oo qarka ka dhaca, mar walba dhibanaha dhibka soo gaaray waxaa loo nisbeeyaa in ay dumarku yihiin, oo burburkaasi reerka ku yimid waxaa eedeeda la tusiyaa ninka. Waa dumarka kuwa mar walba cabanayo ee dhahayo ragga ayaa sidaa sameeyay, ragga ayaa ku qaldan arrintan, sidoo kale ragga ayaa sidan wax u qarribay. Su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay, dumarku mar walba oo dhib dhaco ma la dhihi karaa dumarku way ka madax bannaan yihiin fashil kasta oo reerka ku yimaada? Marka runta laga hadlo, jawaabtu waa maya. Way jiraan dhacdooyin qaar oo dumarka ay leeyihiin qalaasaha qoyska ku yimaada ee sababa in lagu kala tago. Waxa aan arrintaa ku macnayn karaa ayaa ah in ay dumarku aaminsan yihiin inay iyadu dhibana u tahay fal walba oo ku yimaada reerkeeda. Waana sababtaas waxa ay mar walba oohintooda iyo eedooda aan u dhammaanaynin. Ma jirto haweeney inta isdejisa isdhahaysa arrinta markay halkaa taagan tahay aniga maxaa qalad ah oo yeelan karaa. Iyada oo taasi isweydiin ayay mar walba iska soo jartaa in ay tahay dhibanaha looma ooyaanka ah ee raggu waxyeelayaan mar walba. Fikirka ay dumarka nafteeda ugu aqoonsatay dhibanaha aan guurkeeda ku dheefsan ayaa ah mid qaldan. Waxaa jira xeelado badan oo ay dumarku ku kallifaan in ay raggu ka fogaadaan si qoyska qalalaasihiisa ay ugu muujiyaan in raggu yahay kan sababa deganaan la'aanta qoyska. Waa run, waxaa jira xeeladaha qaar ragga haddii loo isticmaalo uu ninku falcelin ka geysan karo ama uu u muuqan karo dambiile. Fal walba uu qofku sameeyo waa hubaal in ay jiraan wax ku kallifay falkaas inuu sameeyo. Falcelinta arrintaa ka dhalata waa midda hadhow qoorta loogu geliyo ama loogu dhigo inuu yahay dambiile aan naxariis lahayn ama manaxe ay naxariistu ka guurtay, iyadoo aan la isweydiinin maxaa ku kallifay falkan inuu sameeyo. Haweeneyda iyada ayaa janno u noqon karta ninkeeda. Ninka inuu naag kala damcana iyada ayaa ku lug leh, waayo wax waliba uu naag kale ka raadin lahaa adigaba waad haysataa. Ha ku canaadin oo ha ku ceelin. Waxaa intaasi kusoo gabagabeynayaa qormadii koobnayd aynu kaga hadlaynay bilcaan waa bala loo baahan yahay. La wadaag asxaabtaada walaal haddii ay tahay markaad kuugu horeyso channelkana subscribe saar. Mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.